maxaad ka taqaanaa 80 gurada habaaran ee Yuhuudda ama waxay carabtu ugu yeedho lacnatul aqd athaamin maxaa ka jira in maamulka Yuhuuddu markasta oo 80 sano gaadho uu burburo maxaa ka dhaxeeya Yuhuudda iyo tirada 80ka warbixintan ayaa waxa aan kugula wadaagi doonaa oraahdan oo adeegsigeedu maalmihii ugu dambeeyay uu si aad u haystay noocyada kala duwan ee warbaahinta gaar ahaan midda ka soo baxda dunida carabta waxa si aad oraahdani ay warbaahinta u qabsatay wixii ka dambeeyay 7 bisha Oktoobar xilligaasi oo dhaqdhaqaaqa iska caabinta ee Hamas ay weerar aan noociisa hore loo arag ku qaadeen ciidamada Israa'iil ee duulaanka ah afayeenka dhaqdhaqaaqa Hamas Abu Ubayda ayaa oraahdani isagoo adeegsanaya waxa uu ku daray fariin uu u dirayay Tel Aviv isagoo oo ku goodiyay in xilligani la joogo ama uu soo dhow yahay 80 gurada ka soo wareegtay maamulka Yuhuudda xilligaasina uu ku astaysan yahay muddadii ay burburi lahaayeen ayaa uu yiri markasta oo la gaaro 80 sano maamulka Yuhuudda ayaa taariikhda waxa lagu yaqaanaa in ay burburaan ma aha dacaayad ay warbaahintu baahisay balse sidoo oo kale waxa qaba madaxdii kala duwaneed ee maamulkaasi soo martay haba ugu horeeyaan ra'iisul wasaarayaashooda kani waa ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Ehud Barak isagoo oo maqaal ku qoray wargeys laga leeyahay Israa'iil sanadkii la soo dhaafay ayaa waxa uu si cad u sheegay in dhibaatada dadkiisa Yuhuudda haysata ay ku siman tahay ama ay ku astaysan tahay sanadka 80aad marka la gaaro waxa uu maqaalkaasi ciwaan uga dhigay dhibaatada haysata dadka Yuhuudda ah waa inkaar iyaga dhexdooda ayaa uu yiri waxa uu xusay sidoo oo kale taariikhda dadka Yuhuudda marnaba ma soo marin maamul 80 sano jirsaday marka laga reebo ayaa uu yiri xukunkii boqor Daa'uud iyo xilligii Hashmuumiin kuwaasi oo iyagana burburkoodu u bilaabmay markii ay jirsadeen 80 sano ayaa uu yiri maamulka Sahyuuniyadda ee hadda hoggaanka u haya Israa'iil waa isku daygii saddexaad ee ay Yuhuuddu ku samaysato maamul ka dhisan bariga dhexe sanada ka hor waxa hadalkan oo kala ajeediyay ra'iisul wasaaraha hadda xilka haya ee Benjamin Netanyahu waxa uu yiri waxa aan markhaati ka noqon doonaa in Israa'iil ay u dabaal degto sanad guurada boqolaad maxaa yeelay taariikhdu waxa ay nabatay in Yuhuuddu aanay yeelanin 80 sano maamul ka badan sidoo kalena ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Naftali Bennett ayaa isna waxa uu dhacdadani ka hadlay waxaana uu sheegay in Israa'iil ay xilli adag oo masiiriya wajahayso waxa uu yiri shacabka Yuhuuddu 2 jeer oo hore ayaa ay u dumeen kala daadasho gudaha ah xilligani waxa dhow ayaa uu yiri muddada 80 sano ee maamulka Yuhuudda waxaana dirba soo ifbaxaya ayaa uu sheegay khilaafyada adag ee iyaga u dhaxeeya taasi waa aragtida ay siyaasiyiintu qabaan laakiin ma aha kaliya mid iyaga ku kooban waxaana arintani sidoo kale ahminsan cilmi baarayaasha iyo dadka qorayaasha ee Yuhuudda ah buuggan waxa lagu magacaabaa guriga saddexaad sanadkii 2021 ayaa waxa qoray wariye iyo cilmi baaray Yuhuudi ah waxaana uu ku qoray in sanad guurada 80aad ee Yuhuudda ay uga dhigan tahay mid nafahooda halis ku ah taasi oo ka dhalanaysa ayaa uu yiri kala daadasho dhinaca gudaha ah waxa uu kitaabkiisaasi ku xusay in Israa'iil ay haysato fursadii ugu dambeysay sidoo kalena Sheikh Ahmed Yaasiin wadaadkii aasaasay dhaqdhaqaaqa Hamas ayaa isaguna mar wax laga weydiiyay mustaqbalka iyo cimriga Israa'iil inta uu gaarsiisnaan karo waxa uu sheegay in Israa'iil ay ku adag tahay in ay gaadho sanadka 2027 xilligaasi oo sanado kooban ay ka harsan yihiin waxa uu sheegay in xilligaasi wixii ka dambeeya ay adkaan karto in maamul Yuhuuddu ay leedahay uu ka sii jiri karo gobolka bariga dhexe